warbixintan filasha tartanka dadka adduunka oo dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in tirada dadka Nigeria ay kordhi doonaan marka la gaaro 2040ka afar laab inta ay hadda yihiin. Tirokoobyada filashada ah ee qaramada midoobay ay soo saartay ayaa lagu sheegay in tirada ragga ay dumarka ka sare mar doonaan gudaha Nigeria iyo adduunka oo dhan. tirada dadka Nigeria ayaa waxa ay hadda gaarayaan 200 oo milyan 960 oo ruux. Waxa kamid ah 99 milyan iyo 132 oo dumar ah iyo 110 milyan iyo 832 oo rag ah. Sidaas oo kale warbixintan oo jariirada la yiraahdo Vanguard ee dalka Nigeria ka soo baxda ay daabacday ayaa sheegtay in Nigeria ay kamid tahay dawladaha ugu taranka fiican dadweynaha adduunka marka ay raggu ka bataan dumarka sidii dhacday qarnigii 19aad oo tirada raggu ay ka bateen tan dumarka. waqtigaasi waxa uu u hiiliyay dumarka oo 70% haweenka Australia waxa ay noqdeen kuwa reer leh. xilliga waxa ay noqotay markii ugu sareysay ee dhinaca guurka ah marka la barbar dhigo waxay shaqayn jireen saacado kooban. arintaasi dumarka waxa ay siisay awood badan oo waxa ay keentay inay arrimo badan rabitaankooda u leexiyaan sida ay wax u rabaan ay wax ugu socdaan.